Cabdullaahi Cali Aadan oo magaciisa afgarashadu yahay Maxamed waxa uu ku biiray Al-Shabaab 2014 waxa uu kaga biiray Qansax Dheere waxa uu ahaa curadka reerkiisa sidoo kale waxa uu caawin jiray aabihiis oo uu la xoogsan jiray si ay u koriyaan 5 caruur ah oo ay ka gooriyootay hooyadiis iyo xaas uu mar dambe guursaday laakiin waa uu ku caasiyay xilligii ay ugu baahi badnaayeen ma helin fursad waxbarasho maadi iyo diini toona waxa uu ahaa reer mii aan marna dhinac uga bixin tuuladii uu deganaa waxa uu ka qayb qaatay dhowr weerar oo jidgal ah kuwaas oo badi ka dhacay wadooyinka looga baxay ee kuwa laga soo galay Qansax Dheere 26 November 2018 ayuu go'aansaday inuu nolosha isdhaafiyo isagoo sidoo kale gacantiisa ku dilay caruur ku jirtay xarun ku taala magaalada Gaalkacyo dadka waxgalka ah ee ku baxay gacantiisa waxa kamid ahaa Allaha u naxariistay dablo xooga dalka Ciise Cabdullaahi Cali oo kamid ahaa ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab mid askari ah إن شاء الله ميل دربان ودينا ميل لشيء إن شاء الله هو سير دمرك الدرب بربري نعمل كان درب أكتر في دينا سيرنا ماشي إن شاء الله لشيء كذا بربري ماشي كوسو قال هنا مركز ثابت كله هنا isla maalintaasi waxa dhacay qarax labaad oo ka dhacay bartamaha magaalada gaar ahaan goob aan ka fogeyn xarumaha waxbarasho ee jaamacadda iyo iskuulka Gaalkacyo qaraxaasi waxa uu dhaawac ka soo gaaray maama Siraad Wardheera Nuur waxa ay sidoo kale ku weysay saygeeda hadda waxa ay la daalaadhaysaa nolosha laba wiil oo kaga geeriyooday saygeedii hore qaraxi waa dhacay markuu dhacay aniga dhulka laga qaadanayna qiyaar la'aan baa laga qaaday ani meel aan saasdana oo qashin ku dhex jiraan arka anigana oo duduwan waa ka booday waa arka aan noolahay waa ka baxsaday xilciyo baxayo igu soo dhow baan ka baxay ilaahay waa amarka ilaahay baa iga baxshaanay aniga shaaban karsaday qaayad imisa xarraasta laba cunug baan haystaa marka halkaan ka biishaa bartaan shaahigaas ka karsadaa bilowgii bishan ayay xafiiska xeer ilaalinta codsadeen dhageysiga eed ka dhan ah Cabdullaahi Cali Aadan waxaana laba fadhi kadib maanta ay go'aan ka soo saartay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida sida uu warbaahinta u sheegay gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida markay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada dacwada oo kala ah xeeralayaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedeysanaha sidaa darteed maxkamadda waxa uu cadaatay in dambiile shabaab Cabdullaahi Cali Aadan uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa uu furan racfaan wabillahi tawfiiq Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka magaalada Gaalkacyo